dhammaantii waan hambalaynayaa qaranka meel walbay joogaanba golayaasha deegaanka soo baxay iyo meerada la doorto oo dhan kuwa caasimadana maadaama ay dhowdeen oo sarreeyo waan hambalaynayaa dhammaantiin maayarka iyo maayar ku-xigeenka la doortona waa hambalyaynaya hal dardaaran un baan idinkaga tegayaa sidaa oo wad socotaanee qurux badan oo qalbiga baa la rabaa waxaa laydinka rabaa magaalada caasimadda waxaa ku nool malyuun dhidhow 17 xilkeedii la saaray dadku way idiin codeeyeen way idiin soo daaleen rajo badan bay idinka qabaan oo ilaahay waxaan ka baryayaa inuu rajadaasi rumowdo oo idiin yaraato dardaarankuna waxaa weeye xilkaa idin furay waxaa ku gaari kartaan guul idinkoo shaqeeya hab dowladeed hab midaysan iyo hab xafiis waa isugu dhantihiin khilaafkiinu ha ahaado meelaha doodaha dhexdiina ah iyo shirarkiina oo aan dibadda u bixin ceebaha dhacaa waxa weeye marka shir la galo waxaa ka timaadeen masalan xisbiye kala jaada degmooyin kala jaada marka atiin laakiin gola la yidhaahdaa xisbigii iyo xaafadii way hadhayaan golihii midayntaati golihii hoggaamintaati golihii waxqabadkaati haddii go-aankiina markaad doodaysaan uu dibadda u baxo oo tira wallahi anugu saasaan dadkii ninkii kale saaxiibkaa aad tirahdo eed saarto saasaana waa layga diiday halkaasaa laga jabaa mar haddii farna ha dheeraatee go-aan laysku raaco waa loo midaysay haddii kaa la waayo ma socon karaysaa hoggaamintu waa intaa laba waxaa kaloo ku dardaaraya isu dulqaad midkiinba si gaar u soo koray waayo arrimo kala gaaraa leedihi aqoon kala gaaraa leedihi dabeecado kala gaaraa leedihi marka haddii adigu siaad waxu aragta lagula arki waayo dul qaadan weydo khilaaf baa imanaya hadduu khilaaf yimaado dadka u shaqayn maysaa oo meel baa ka dhacaysa marka labada qodob ee aan doonaya inaad dardaaran gutantaan waa midnimada oo qof baynu nahay haddaynu qof noqon weydo dadka faafici kara mayno wixii idinka doonaya idinka sugaya ina socon mayso iyo haddaad go-aan gaadhaan doodiisii ilow haddaad doonto sax ahaw haddii lagaa bato babliga waa inaanu kaa helin adiga oole waart wallahi saasa hadiya saasa haddii xantaa aad joojisaan oo mid ka ahaataan hore u maraysaan ra'yigaa helaysaan resourcekaa helaysaan ixtiraamkaa helaysaan ducadaa helaysaan lakin hadduu dhexdin khilaafto waa jabsa marka waxaan rabaa 17 naase magaalada caasimadda ah inaa midaysaa tan ku celinaya waa taa dadka intaa le inaydaan naga gelgela karo ee midaysaa meerkala doortay waanu kuu ducaynayna cod badan oo adduunka hore dhicin baa yaa laguu taageera rajo badan baa lagaa qabaa siyaasad nolosha runtiina waxa weeye dowlad kasta iyo qof kastoo la doorto filashada expectation dadku waxay filayaan rajada ay filayaan ee degdega ah iyo duruufaha dhabtaa iswadaarta taana ku xisaabtama ha ku qalbi jabin ha ku daarina waxaa laidinka filayaa cirka ma noqonayso cirka duruufa adag baynu leenahay lakiin haddaynu qorsheyno oonu mid noqono dadka waa ku raaligelina kolba intii la qabto baahi badan ayaa taala resourcekeenu waa koobkoobeyn hawlaheenu way badan yihiin dowlad ahaan waa idinla shaqaynayna waa idin tilmaamayna waa idin hagayna wasaaradda dakhiliya hawshaasay ku amran tahay bala saabka mid baynu ku wada shaqaynayna taasaa inoo dardaarana intaasaa idin halelayaa waana idin hambalyaynayaa dhammaantiinna aad iyo aad baan idinku hambalyaynaya idin ducaynayaa is ogolaanshaha isu dulqaadka isu tanaasulka nin kastaa intiina wuxuu doonaya in meer noqdo ama ku xigeen waa hubaal nin kastaaba ku soo ololeeyey nin kastaaba qalbigiisu ka sheegay orma socda anugu xubino waxaan u socdaa meyer laakiin dee run caqliyaddu sax maha marka waanu duruufaha qaadanaa markaa taana waan idinku ammaanaya isku dulqaateen dardaarankeenu waa intaa aad iyo aad baa mahadsan hawl wanaagsan sida iyo horumar iyo midnimo iyo hawl bani soo wasalaamu calaykum waraxmatullah